daawadayaal markale iyo barnaamijkeennii maxaa xiisaleh toddobaad kasta hal mar toddobaadka barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa warbixin sir ah oo ay qoreen qaar ka mid ah reer galbeedka iyo waaxdooda warwareynta Wadafada Media aragtay taasoo ay ku daraasiyeen isla markaana ay ku odorseen habka ay u dhici doonto natiijada ama ay u dhici karto natiijada doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya ee bilaha soo socda dhici doonto. Warbixintan ayaa lagu tilmaamay warbixin dhinaca mukhaabaraadka iyo sidoo kale indhayn ku aadan habka maamul goboleedada, madaxda maamul goboleedada iyo sidoo kale deegaanada iyo xildhibaanadu ay kala codeyn doonaan, taasoo lagu tilmaamay inay noqon doonto tan ugu ballaaran ee wax lagu qaybsan doono. Warbixintu waxay si togan u fiirisay sida ay xildhibaanada deegaanada u soo kala bixi doonaan iyo sidoo kale maamul goboleed kasta xildhibaanada uu leeyahay marka ay noqoto heer maamul goboleed oo heer gobol iyo marka ay noqoto heer markaasi deegaan oo ay noqon karto markaasi xildhibaanada lagu qaybsado qaabka beelaha. Waxay warbixintan sidoo kale sheegaysaa ma qeexaysaa saddex qaybood ayay u qaybisay awoodda tartanka madaxtinimada ee dalka, taasoo ay u kala qaybisay in ay awood gaar ah ay tahay waaxda dhinaca iskaashatada loo yaqaano midowga musharaxiinta muwaadiniinta iyo sidoo kale Saciid Cabdilaahi Dani oo isaguna daraf ah iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo isagana ay ka dhigeen dhinac. Saddexda qaybood ee u kala qaybisay warbixintu awoodaha isku haya talada dalka ayaa waxay sheegeen in ay qolo kasta ay noqon karto tan muhiimadda faraha badan yeelan doonto. Haddaba waxay sheegeen in warbixintan ay qeexday isla markaana ay ku indheeyeen habka ay u soo kala baxeen xildhibaanada ilaa hadeerto iyo sidoo kale kuwa jidka soo haya iyaga oo markaasi faaleeyay qaabka istiidan ee dhinaca deegaanka, qabaa'ilka iyo sidoo kale waxyaalaha ay ku tilmaameen daran marka uu dhamaysa imaan doona iyo habka maamul goboleedada. Xataa waxa ay indheyn ku sameeyeen qaar ka mid ah maamul goboleedada oo dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo la xijiyo oo ayagu gabadhacleynaya ama ruuxan uu ku jiro dhinaca siyaasadda ah, taasoo uu ka mid yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariga Qoorqoor iyo sidoo kale xubno kale, balse waxa ay si togan u fiirisay warbixintan oo loo dusiyay diblomaasiyiinta reer galbeedka kasta markaana ay qoreen dadka sida weyn ula socda arrimaha dhaqdhaqaaqa isdoorashada Soomaaliya mid markaasi noqotay tan ugu ballaaran ee ilaa hadeerta daraasaad laga sameeyay doorashada. Warbixinta ayaa waxaa lagu bilaabay isla markaana lagu daahfuray qaabka doorashada ee Soomaaliya u dhacdo. Waxaa lagu tilmaamay horta marka horeysa doorashada inay ka kooban tahay laba aqal. Labada aqal ay kala yihiin aqalka golaha shacabka oo 275 xildhibaan iyo aqalka sare oo 54. waxaana la sheegay in iyada oo ay mar walba ay ku caddahay dastuurka iyo sidoo kale habqaybsiga waxa loo yaqaan in xildhibaanada aqalka sare ay ku yimaadaan qaabka gobolada, haddana inay mar walba ay koosti kaga lamaantahay waxa loo yaqaan 4.5 oo hanaanka Soomaalidu ay u dejiyeen qaar ka mid ah dalalka dariska, taasoo ah tan kala irdhaysay Soomaalida isla markaana dhibaatada weyn u geysatay dowladnimada Soomaaliya. Warbixinta waxaa loo qaybiyay haddaba saddex daraf. waxaana la yidhi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaa lagu bilaabay inuu noqon karo inuu haysto wax loogu yeedhay kanshadii ugu ballaadhneed ee dib loogu dooro karo, iyadoo sidoo kalena la sheegay in daraf kale ay taagan yihiin golaha midowga musharaxiinta ee Soomaaliya iyo Saciid Cabdilaahi Dani. Warbixintu waxay sheegtay in maamul goboleedada ay ka jiraan hab heer sare ah oo la isku diyaariyay. Waxay sheegeen in maamul goboleedka ugu ballaaran xildhibaanada ugu badan uu yahay maamul goboleedka loo yaqaano Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasoo ay ku tilmaameen in uu yahay madaxweynaha talada haya iyo dadka deegaankaasiba kuwa bariyay ugu dambeeyay si weyn ay isugu sii dhawaanayeen madaxweynaha talada haya, bedelka ay aad si kala durkayeen dadyooga kale ee dariska yihiin ay ka mid yihiin qabaa'ilada Muqdisho ku badan. Waxay ku tilmaamtay warbixintan loo gudbiyay reer galbeedka in arrintaasi ay ka dhalatay daandaansi dhinaca dhulka iyo sidoo kale isballaarin dadka qaarkood ay wadaan, taasoo ay sheegeen inay keentay kala shaki xoogan oo dhinacyada ku timid iyo in sidoo kale Farmaajo uu ka faa'iideystay ugana faa'iideeyay intii uu xilka hayay isagoo mashaariic tarabeela ka furiyay ay yiraahdeen Koonfur Galbeed, sidoo kalena deegaano dhowr ah u xoreeyay isla markaana u diray ciidamo. Inkastoo ay jiraan ayaa lagu yiri warbixinta qaar ka mid ah dadkaas qaar laga tira badan yahay macnahaan marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda haatan oo ka soo horjeeda, gaar ahaan waxaa la yidhi dhaqaaqii lagu soo qabtay 2018 Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo asagu ahaa wadaad hore uga tirsanaa xarakada shabaab. haddana waxaa la sheegay in taasi aysan ku filayn in Farmaajo looga adkaado kuraasta 77 oo ay ku tilmaameen inay badankooda helayaan. waxay ku tilmaameen in doorashada dhici doonta ilaa hubo waa sida halka u dhigayna ama ay hilaadiyeen in ugu yaraan 54 xildhibaan oo ka mid ah kuwa Koonfur Galbeed uu ku guuleysan doono Mr. Farmaajo, halka ay sheegeen in inta soo hadhana ay qaybsan doonaan madaxda huwanta ah ee ayagu madaxtinimada xilka u sharaxan ee golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya, kuwaas ay ku tilmaameen inay heli doonaan ayaguna 23 cod, halka Saciid Cabdilaahi Danina uu heli doono 4 cod marka loo eego kuraasta ka imaan doonta isku dar ayaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxay sidoo kale warbixintu hilaadisay in qabaa'ilka kale iyo xildhibaanadooda marka la isku wada daro
galmudug xildhibaanada ka imaanaya farmaajo uu heli doono ayay yiraahdeen 22 kuwaasoo marka laga jaro ay yiraahdeen 45 xildhibaan ay noqon doonto 48.8 halka midowga musharaxiintana ay heli doonaan 22 cod oo si hadalka u dhigeen hal codna waxa heli doona ay yiraahdeen Saciid Cabdilaahi Dani taasoo iyaduna muujinaysa ay yiraahdeen in codadka ugu badan uu heli doono farmaajo inkastoo ay sheegeen in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu doonayo in uu waji ka sameeyo qaar ka mid ah xubnaha sida weyn ay isugu raataagan yihiin ee ka soo jeeda deegaankiisa musharaxiinta haddana taasi ma sahlanaan ayaa leeyahay in ay uu helo qor weyn oo farmaajo kaga goosto magaalada Dhuusamareeb xildhibaanada yaalla iyo sidoo kale kuwa gaalkacayo waxayna sheegeen in inkastoo Qoorqoor uu gabadhacleeyay isla markaana uu ruuxan weyn uu ku yimid haddana inay weli muuqato in farmaajo saameynta ay isku leeyihiin ay ka weyn tahay tan kale ee mucaaradka dhanka kale waxay sheegeen in xildhibaanada ugu badan ee uu heli doono codadkooda Saciid Cabdilaahi Dani ay noqon doonto kuwa Puntland laakiinse saas oo ay tahay waxay sheegayaan in xildhibaanada Puntland uusan ka badsan doonin 48 cod marka loo eego xildhibaanada deegaankaasi Puntland oo ay ku tilmaameen 72.9 uu heli doono halka 9 codna uu ka xalabsan doono farmaajo oo 18 afarta cod soo harayna waxa qaadan doonaan midowga musharaxiinta sida halka loo dhigay waxay sheegeen in doorasho deegaanka Hirshabeelle ay noqon doonto meelaha kale ayaguna xiisaha gaarka yeelan doona iyagoo sheegeen farmaajo ugu yaraan 23 cod uu ka heli doono taasoo ka dhigan ay yiraahdeen 46 cod in uu ku dhawaad kala badh uu helay ama kala badh uu helay 50% 22 ka mid ah waxa heli doona midowga musharaxiinta hal cod kaliya ay Dani ka siiyeen halkaasi waxay ku tilmaameen in doorashada marka ugu dambeysay isku soo xari doonaan Dani iyo waxay yiraahdeen farmaajo waxayna arrintaas ku nisbeeyeen laba sababood oo waaweyn waata koobaad waxay dhaheen in ilaa iyo 15 madaxweyne ay u taagan yihiin xilka dad isku reer ah wasi hadalka u dhigeen oo ay la jeedaan midowga musharaxiinta ee magaalada Muqdisho ku urursan kuwaas ay ku tilmaameen inay codadkooda aad u baabi'iyeen isla markaana ay kala googooyeen waxayna ka tilmaameen in taasi ay faa'iido aad u weyn u noqon doonto Dani iyo farmaajo waxayna ku tilmaameen in ay taasi soo dhaweey karto guusha inkastoo warbixinta ay ku jirto inaysan inta badan Soomaalidu aysan sameeyeen dib u doorasho madaxweyne bariyii ugu dambeeyay haddana waxay ku tilmaameen in farmaajo uu cilaaqaad aad u wanaagsan uu la lahaa shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay jiraan ayuu galaangal iyo loolan aad u xoogan oo doorashadan ugu jiro taasoo keentay lugjiid aad u badan xitaa ilaa xad in lagu dhiiri waayo waxay sheegeen in xildhibaanada qaranka Soomaaliya oo ah 329 cod oo 159 cod uu heli karo wareegga koobaad misal farmaajo iyagoo sheegay in isku dar 100 codna ay heli doonaan midowga musharaxiinta oo ka dhigan 30.3 halka farmaajona 48.3 heli doona waxay sheegeen Saciid Cabdilaahi Dani in 70 cod uu xaqiijin doono wareegga koobaad oo ay noqon doonto 22.2 hase yeeshee waxay sheegeen in 160 ku dhawaad cod aan la gaari doonin iyagoo sheegay in 100 xildhibaan iyo 70ka wixii ka soo haray farmaajo ugu dari doonaan maadaama ay kala dooran doonaan marka ugu dambeysay ay yiraahdeen laba nin oo isku qoysa balse inta badan ay qaadan doonaan qofka ay u arkaan hoggaanka dhinaca dalka iyo xaqiijintiisa si hadalka loo dhigay warbixintu waxay sheegtay in kastoo siyaasadda Soomaaliya ay sillado isla markaana aan 100% si wanaagsan loo hilaadi karin haddana dalalka reer galbeedku waxay sheegeen in warbixintan ay ku caddahay oo daras fiican oo si wacan looga garan karo in Soomaaliya ay jiha kala qaadi doonto marka uu farmaajo uu xilka la wareego waayo farmaajo dib loo doorto wuxuu leeyahay ay yiraahdeen waxay ugu yeedheen qorshayaal waaweyn oo Soomaaliya la rabo kuwaas oo ka dhigan ay yiraahdeen inuu hore u sii wadi karo hab kale oo dalka Soomaaliya uu ku soo celiyo iyo waliba nidaamka uu u degsaday ee loo yaqaan adkaynta dawladnimada iyo sidoo kale dhistaanka ciidanka xoogga dalka kabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo arrimo kale oo ay warbixintu xustay laakiin warbixinta ayaa sheegtay in ay wax kasta isbedeli karaan hadse yeeshee waxa lagu soo gabagabeeyay in ay wali u muuqato in Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu noqon doono madaxweynaha 4 sano soo socota markay doorashadan ay dhacdo warbixintan ayaa dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in qaar kamid ah dad la shaqeeya hay'adaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay qoreen isla markaana la gudbiyay taasoo habka loo qoray ee ku jirto in qoys loo qoray beelaha Soomaaliyeed iyo qabiil kasta inta xubnooda uu ku leeyahay ay muujinayso dad aad isugu hawlay warbixintan oo dhowr ilaa 5 bog ka kooban ayaa waxay muujinaysaa in waqti aad u badan la geliyay isla markaana lagu qoray luqadda qalaad iyadoo si qodob loo kala dhigay habka ay qabiiladu xataa isku kala hayaan iyo sida isku riixaan xataa markay noqoto kuwa isku jifooyinka warbixintu waxay ku tilmaantay labada nin ee aadka ugu kakan madaxweynaha Soomaaliya inay yihiin Saciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam waxayna sheegtay warbixintu inay geed sare iyo geed hoose ay u fuuli doonaan in ay kursi turaan farmaajo laakiin waxay u arkaan warbixintu inay ka ildoofeen habkii ay farmaajo xilka uga qaadi lahaayeen ama ay guultaro u dhigi lahaayeen taasoo ahayd inaysan iyo isla sharxin sidoo kalena waxay dhalishay habka dhowr iyo
tobanka ay yidhaahdeen musharax ee isku reerka ah ayaguna ay u doonayaan inay farmaajo la tartamaan taasoo iyaduna meesha ka saaraysa in laga guulaysan karo ay yidhaahdeen madaxweynaha hilaadinta doorashadii ugu dambeysay ayay ku tilmaameen in waxyaalaha looga faa'iidaystay madaxweynihii waqtigaasi ay ahayd inuu la sharaxnaa ra'iisul wasaarihii dalkaasi iyo sidoo kale dad kale oo isku qoys ahaayeen oo kamid ahaa madaxweynihii isaga markii horeba xilka ku wareejiyey taasina ay keentay inuu si fudud farmaajo ugala xalabsado ama ugala dhaxbaxo haddeertan waxay ku tilmaameen in farmaajo mar kale kala dhaxbixi karo ayay yidhahdeen dhinacyadan amanaal